xalay xaafadda Soomaalidu ku badan tahay ee Mayfaar. Banaanbaxani ayaa dadka waxa ay ku dalbanayeen in la sii daayo Sheekh Xasan Daahir Aweys oo ah hogaamiye diimeed isku soo dhiibay maamulka xubniye xeeb haatanna gacanta ugu jira dowladda federaalka ee Soomaaliya. Sidoo kale dadka ayaa waxa ay dowladda ku dhaliilayeen arrimaha Jubbooyinka iyo xariga dowladda Kenya ay u geysatay saraakiisha dowladda ee Jubbooyinka. dadkani isugu soo aruuray xaafadda Mayfaar ayaa hadaladooda waxa ka mid ahaa Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar walillahi alhamd waxaan cambaaraynaynaa dowladda madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh Maxamuud waa dowlad maxmiyada waa dowlad aan ballan iyo xad midna lahayn waxaan ka soo horjeednaa xabsiga loo taxaabay Xasan Daahir Aweys waxaan ka soo horjeednaa odayaashii Soomaaliyeed ee la jir dilay ma sha Allah waxaan cambaaraynaynaa ciidankan oo suuda oo jir dilay odayaashii Soomaaliyeed boqorrada ahaa salaadiinta ahaa inargaradkii iyo culimaadoodkii iyo salaadiintii dadkii aadka iyo aadka u qiimaha badnaa oo dadka Soomaaliyeed u dhaxdooda tixgelinta weyn ku lahaa dadkii jirkidilka u geystaan cambaaraynaynaa sidaas oo kale waxaan cambaaraynaynaa xadgudubka loo geystay sheekha caanka ah 70 jirka oo la dulmiyay oo la xiray oo gaalada loo gacan geliyay arintaas shariicada islaamka iyo aqliga saliimka intaba xaraam ku ah waxaan leenahay si sharciya oo degdega u sii daayo xornimadii Xasan Daahir hasiyo Xasan Daahir ma oo soo qabsan waxa lagu keenay wada hadal ayaa lagu keenay wadanka wadayaala keenay sooma oo qabsan waa inuu xornimadiisii soo dhibaatada ka dhacday dalka Soomaaliya Muqdisho Jubbooyinka iyo Soomaaliya oo dhan waxaan xasuusta ka hadlayaa Fast 1 dhibaatada loo geystay ummadda Soomaaliyeed ee reer Muqdisho oo odayaashii iyo suldaamadii iyo boqorradii iyo ubaasiyadii iyo culimaadoodinkii lagu dhibaataynayo Xasan Daahir Aweys waxa kale oo ka hadlayaa dhibaatada loo geystay ummadda reer Jubbooyinka dhibaatada loo geystay oo ay u geysteen ciidamada Kenya madaxweynaha dalka Soomaaliya ayadoo dad oo ajnabi oo gacanta u galiyay aadayaan u cabanaynaa gaala iyo gacanta qof Islaam oo soo dhibo isku soo wada duuba banaanbaxani ayaa waxa ku soo idlaaday jawi nabadeed iyadoo banaanbaxayaashuna ay dalbanayeen in si degdeg ah lagu sii daayo Xasan Daahir Aweys. Cabdiqani Abtidoon, Kalsan TV.